1990 January dawladdu markay burburisay waxaa yaalay 140,000 oo buug baa yaalay. sidaad arkaysaan waxaa ka muuqda burbur lixaad leh oo waa maktabadii qaranka Soomaaliyeed Somali National Library waxa ay qayb ka tahay xarumaha qaranka ee ku burburay dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dalkanaga Soomaaliya. waa qayb ka mid ah gudaha maktabadda oo hadda shaqaynaysa waxa yaala buugaag kala duwan oo xilligan arday ayaa ku sugan halkan waxay u gaar tahay caruurta oo waxa ku kaydsan buugaag loogu talagalay maxay tahay muhiimadda ay qaran u leedahay lahaanshaha maktabad qaran qofka ajnabiga ee dalkan yimaada ee raba Soomaaliya inuu ku ogaado luqadeeda iyo dadkeeda iyo qabaa'ilkeeda iyo dhaqankeeda iyo taariikhdeeda iyo historigeeda meesha loogu talagalay inuu ka yimaado waa halkan ka helo waa halkan waxa loogu talagalay buug kasta oo Soomaaliya laga qoray luqad kasta oo ku qoran yahay dhaqan kasta oo Soomaaliya laga qoray luqad kasta oo ku qoran tahay in loo keydiyo halkan waxa loogu talagalay archive ahaan dalka waxa la wixii document ee lahaa in lagu soo aruuriyo si hadhowto qofku taariikhdiisii Soomaaliyeed markuu rabo inuu barto inuu halkan u ka barto qaybtan waa qaybtii cafeteria-da ama qaybtii maqaaxida ahayd ee markaasi dadku ay ku cabi jireen shaaha iyo biyaha sidoo kalena lagu nasan jiray burbur lixaad la ayaa ka muuqda iyaduna waqtigan ardaydu ma yihiin kuwa u diyaarsan dib u soo celinta bilicda iyo shaqadii maktabadda qaranka annaga haddii aan nahay ardayda Soomaaliyeed waxaan naga go'an in maktabadda qaranka Soomaaliyeed aan ku taakulayno wax kasta oo awoodeena haddii ay tahay in contribution buugaag aan u sameeyno iskuulada aan ka soo qaadno iyo jaamacadaha iyo xitaa gobolada aan ka keenno sidaas darteed marka awoodeena waxaan rabnaa taaka kasta oo kamid ah dhulkeena in ay gasho si aan mustaqbal ugu fidino ardayda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada naga dambeeyay guulihii muddo gaaban ay gaartay Soomaaliya oo dunidana ka diiwaan gashan waxa kamid ah qorista iyo akhriska afka Soomaaliga oo miyi iyo magaalaba la gaarsiiyay dib u xusuuso 85% dadkii baahiyay waxa ay ahaayeen arday waa maalin kale waxaana socda howlo nadaafadeed oo ay wadaan midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo isku soo abaabulay ardayda maanta meesha taagan ee wax qabanaysa waxay tusaale u tahay ardayda kale ee guryaha jooga ama xaafadaha jooga ama iskuuladooda jiro in ay ardayda qaranka Soomaaliyeed ay howl qaran qaban karaan anaga cid naxasabtay male anaga maanta ka soo baxna guryaheeni marka dadkuna inay nagu daydaan baan u sameeynaa barnaamijkan maanta waa bilow 1975 dawladii Maxamed Siyaad Barre ayaa lagu dhisay iska wax u qabso 43 sano kadib dawladda hadda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqday in maktabadda qaranka Soomaaliyeed lagu dhisayo barnaamijka isxilqaam baahi intee la eg ayay u qabaan bulshada iyo ardayda Soomaaliyeed dib u soo celinta xarunta maktabadda qaranka ardada ama dadka wax barta meelaha ay ka xigtaan culuumta waxa ugu horeeyo buugaagta cilmiyada lagu qoro kuwaas lagu kaadiyo maktabadaha arday ahaan ay noo caawiyaan anaga u baahan qof kasto Soomaaliya u baahan qofka jaamacadda dhiganaya u baahan maktabadda ardayda jaamacadaha dhigato waxa looga baahan yahay in ay u istaagaan todobada maalin kamid ah inay imaadaan ama ay dib u dhiskooda ka qayb qaataan contribution ay aruuriyaan aagani ayaa ah aag xarumo qaran oo markaasi kulmisay xarumihii qaranka Soomaaliyeed sida xarunta maktabadda qaranka Soomaaliyeed guriga hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed iyo madxafka qaranka Soomaaliyeed waa Cabdulqaadir Cumar Cabdullafiidka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable واشق بلد الواشق